Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Maanta waxaan ka hadlaynaa taariikhda aabaha sayniska casriga ah ee Galileo Galilei. Galileo wuxuu sanadkii 1564 ku dhashay magaalada Pisa ee dalka Talyaaniga. Wuxuu ahaa injineer, faylasuf, sidoo kale wuxuu yaqaanay cilmiga xidigaha, cilmul falaga. Wuxuu ka dhashay qoys faqiir ah laakiin caan ka ahaa magaaladii ay deganaayeen. Waalidkiisa asagoo yar ayay arkeen inuu wiilkoodu fahamkiisu sareeyo, iskuul ayayna geeyeen. Aabihiisa wuxuu rabay inuu wiilkiisa dhakhtar u noqdo oo caafimaadka barto. Galileo riyadii aabihiisa wuu rumeeyay oo dhakhtar ayuu noqday, laakiin wuxuu aad u jeclaa xisaabaadka iyo fiisikiska. Markuu jaamacadda ka qalin jebiyeyna wuxuu barofesor xisaabta dhiga ka noqday jaamacadda Pisa. Galileo wuxuu ka soo horjeeday aragtidii dadkii waagaasi jireen ay aaminsanaayeen, taasoo ahayd geocentric, inuu dhulka center yahay, dayaxa iyo meerayaasha kalena ay ku dul wareegaan. Aragtidaasna waxaa aaminsanaa Katooligii kaniisadda ayagoo ka soo xigtay faylasufkii Giriigga ahaa ee Aristotle. Sidoo kalena Baybalkii ama Injiilkii ay aaminsanaayeen aragtidaasi ayay ugu qornayd. Awoodana ayagaa lahaa oo dadka badiba way ka gaabsan jireen, lamana murmi jirin. Laakiin Galileo wuxuu aaminsanaa aragtida heliocentrism, taasoo sheegaysa inuu dhulka iyo meerayaasha kale qoraxdu ay ku dul wareegaan. Taasina waxay cagsi ku noqotay aragtidii Katooligii ay aaminsanaayeen, waxayna cadaadis xooggan saareen Galileo ayagoo ka joojiyeen baaritaanadii uu waday. Sidoo kalena jaamacaddii uu 3 sano macalinka ka ahaa wuu isaga tagay. Asagoo muddo 18 sano ah cadaadis saaran ayaa wuxuu daaha ka rogay inertia ama wahsiga. Sidoo kale wuxuu soo saaray halbeegga heerkulka lagu cabiro oo asaga u gaar ah, iyo telescope ka caawiyay inuu wax badan ka ogaado hawada sare. Wuxuu ogaaday in meeraha Saturn ama af Soomaali ahaan meeraha raage uu leeyahay faraanti ama wareeg qurux badan, intay xufidsaneen, sidoo kalena uu godad waaweyn uu leeyahay. Sidoo kale wuxuu ogaaday in meeraha Jupiter ama Cirjiir af Soomaali ahaan uu leeyahay 4 dayax oo waaweyn. Baaritaankaasna wuxuu sameeyay 1610. 4taas dayaxna waxaa loo yaqaanaa The Galilean Moons ama The Galilean Satellites, asagaana loogu magac daray. Waxayna kala yihiin Io, Europa, Ganymede iyo Callisto. Galileo mar kale ayaa laga mamnuucay inuu baaritaanada sameeyo. Nasiib wanaag waxaa geeriyooday baadarigii kaniisadda, waxaana lagu bedelay wiilkii baadariga dhalay, Maffeo Barberini. Waxayna saaxiibo dhow ahaayeen Galileo. Barberini wuxuu meesha baadari ka noqday 1623, wuxuuna Galileo u ogolaaday inuu baaritaanadiisa sii wato. Galileo wuxuu qoray buug lagu magacaabo Dialogue Concerning the Two Threefold Systems. Baadarigii wuxuu aad uga helay buuggaasi, wuxuuna amray in ardayda loo dhigo buuggaas. Laakiin ardaydii iyo dadkii kaniisadda waxay ogaadeen in buuggu ka soo horjeedo fikirka kaniisadda ay aaminsan yihiin. Labada qof ee buugga looga hadlooyan ay yihiin Galileo iyo Baadar Barberini. Baadarigii wuxuu askartiisa u diray inay Galileo soo xiraan, wayna soo xidhan. Galileo wuxuu xirnaa bilooyin badan. Markii dambe waxay u sheegeen inuu raaligelin ka bixiyo maadaama uu u gafay diintooda iyo waxay ayagu aaminsanaayeen. Galileo wuu aqbalay inuu raaligelinta bixiyo. Maalinkii uu raaligelinta inuu bixiyo la rabay oo warqadda saxiixayay ayaa wuxuu si tartiib ah hoos ugu dhahay, laakiin weli dhulka wuu wareegoyaa. Waxaana maqlay dadkii ka ag dhawaa, ayagana waxay u sheegeen Baadar Barberini. Kadib xabsigii ayay ku celiyeen ilaa intuu ku geeriyoonayay ayuu xabsi guri ku jiray. Galileo noloshiisa gaarka ah wuxuu lahaa 3 caruur ah. Ugu dambeyntiina 8 January 1642 ayuu ku geeriyooday meeshuu ku xirnaa, asagoo indhoole noqday, da'diisuna 77 jir ahayd.